madaxweynaha maamulka Puntland oo dib ugu laabtay magaalada Garowe ayaa kulan la qaatay safiirka Britain Soomaaliya u fadhiya sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cabdirashiid Bashiir Maxamuud oo ku sugan magaalada Garowe. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo muddo safar ugu maqnaa dalalka Imaaraadka iyo Kenya ayaa waxa garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir ee magaalada Garowe ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha xukuumadda iyo saraakiil ka socda aqalka madaxtooyada Puntland. markii wafdigu soo gaaray qasriga madaxtooyada waxaa madaxweynaha iyo xubno ka tirsan golaha xukuumaddu ay kulan albaabada u xiran yihiin la yeesheen safiirka dawladda dalka Britain u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, madaxa hay'adda horumarinta dalka Britain iyo xubno ka socday safaaradda Britain ee Soomaaliya. inkastoo uusan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ka warbixin safarkiisa dibadda, haddana waxa isaga iyo safiirka Britain ee Soomaaliya Ben Fender ay warbaahinta u sheegeen inay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac, xaaladda guud ee Soomaaliya, arrimaha abaaraha, horumarinta dhaqaalaha Puntland, arrimaha ammaanka gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daesh, siyaasadaha qaranka iyo geedi socodka dawladnimada Soomaaliya. dalka UK oo runtii dalka Soomaaliya iyo Puntland saaxiib dheer la ah muddo dheer ka soo qayb qaatay horumarka iyo dadaalada loogu jiro dib u kabashada dalka Soomaaliya, mashaariic badan oo runtii Puntland wax ku oolan awda. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halka ku yeelanay kulan cabaar qaatay oo nagu hadalnay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta intaba. waxyaabihii aan ka wada hadalnayna runtii waxyaabo badan oo wax ku oola ahayd iyo dib u milicsi wixii soo qabsoomay iyo sidii loo amba qaadi lahaa marxaladda soo socota. sidoo kale waxaa wafdiga ku weheliyey hay'adda u qaabilsan horumarinta dalka UK DFID madaxdeeda. runtiina waxaan rajaynaynaa kulamo kaleeto muddada ay nala joogaan inaan sii qaadano oo hoos loogu lafaguri doono sidii wax wada qabsiga Puntland iyo taageeradooda u ahaan lahayd mid miro dhasha. Today I've come with development colleagues to discuss four main issues. The first is how we respond to the current drought and the humanitarian situation here. Britain is helping to invest in boreholes, invest in helping livestock owners to best resist the difficulties caused by the current drought, and we'll be looking at how we can do more together. The second is in the area of economic development. We are looking to support the further development of Bosaso Port. We are helping to develop sectors such as fisheries, and again we want to look at how we might do more together to improve the prosperity and the long-term development of this part of Somalia. The third area we want to discuss today is security and how best we can cooperate in the fight against Islamic State and Al-Shabaab, and how Britain might help to remove some of the longer-term causes of conflict in Somalia. And the fourth area is on national politics, and I've been discussing with the President what we might be able to do together to ensure that there is a common vision between the federal government and the member states on critical questions of resource sharing and power sharing, of the constitution and the electoral model, of security and justice, so that there is a single agreed direction for how Somalia will move forward and how development partners and political partners like the UK can best support. Cabdirashiid Bashiir, Somali Cable, Garowe.